dhawaad ciyaarana aan geli doonaa waxaan kusoo qaadan doonaa xalay kulankii Tottenham iyo nimankii Liverpool oo lagu kala baxay. nimankii Tottenham bari waxay soo noqday wada furan. waxaan kala kusoo qaadan doonaa kulanka caawa Manchester United iyo sida la yeeli karo Darwin Núñez oo ka tagay Liverpool iyo ciyaarihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga sanadii sidaan oo ka hadlay kulanka adag ee Bayern Munich iyo Real Madrid waxaa leeyahay club oo amaan ugu qubay Mohamed Salah kadib markii ay isku dhaceen kulanka Tottenham oo cadar dhigay Mohamed Salah. waxaan kusoo qaadan doonaa iyo wixii barnaamij oo dhan share gareeya Manchester United dhaawacyo ay soo gaaray oo kusoo dari doona barnaamijka waa mahadsantihiin barnaamijka noo share gareeya meel fogna gaarsiiya waxaan ku hormaraynaa xalay kulankii adkaa Tottenham iyo Liverpool sidii loo maleynaayo u dhacday Liverpool ayaa badisay 4-2 sidaas daraadeed waxay noqotay Tottenham wadada iska maray noqotay waxa ku dhifanaysa Chelsea waxa ku dhifatay nimanka la yiraahdo hadda waa laga badiyay kulan hore waa laga badiyay waxay iska noqdeen nimankii kale bixi iska noqdeen ninkii Darwin Núñez waxaa leeyahay inuu ka tagay doono Liverpool ay u badan tahay maadaama ninkan lagu cilcilay garoonka Anfield waxaa leeyahay intii uu joogay cilcil fara badan oo la kulmay maadaama dhowr mar uu isku dayay inuu markaasi line up ka lagu daro laakiin dhowr mar oo ku fashilmay marka inta badan kaydka ay ka soo kacaa una dhibsada leeyahay marka waxaa leeyahay inuu u tagi doono ay u badan tahay wadamadaas kale uu aadi doono ama Portugal ama Germany ama waxa la Real Serie A midkood inuu aadi doono Mohamed Salah ay rakaloona kasii dambeeyay ninkan tababarihii hore sanadii sidaan ee naadiga Real Madrid ayaa ka hadlay kulanka adiga Bayern Munich iyo Real Madrid sida ay noqon karo wuxuuna sheegay inuu kulankaas uu yahay kulan adag lugta labaadna ay adkaan doonto kasii adkaan doonto sidoo hore wuxuu markaa aaminsan yahay inuu markaasi qiimeyn weyn oo markaasi ku fadhiyo kulankaasi labada kooxoodna qolo walba isku dayi doonto sidii ay ku badi lahayd marka sanadii sidaan wuxuu aaminsan yahay Real Madrid inay soo bixi karto laakiin adeeg ay ku noqon karto inay adkaan karto soo bixitaankeeda inay soo baxayso u badan tahay laakiin way adag tahay oo marka xaaladdu ma sahlano ninka Mohamed Salah marka asagana waxa leeyahay waxa amaan ka helay ninka lagu magacaabo Klopp kadib markii xalay uu cadar ka dhigay Tottenhamna ka dhaliyay gool sidaas daraadeed amaan weyn ayuu halkaasi ka helay goolka furitaanka madaxaana xalay ayuu dhaliyay sidaas daraadeed wuxuu sheegay in Mohamed Salah uu yahay ciyaaryahan aad markaasi u wanaagsan marka Manchester United waxa leeyahay daafaciye ayaa markaasi ka dhaawacmay oo hadda waxa leeyahay kulanka soo socda FA Cup xataa saddex toddobaad kadib waxa laga yaabaa in ciyaartoy la'aan ku dhacdo ciyaartoyda ka dhaawacan waxa ay ka maqan yihiin xidiga wax kamid Lindelof, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Johnny Evans waloolay Evans inuu kulanka caawa u ciyaari doono ay u badan tahay laakiin lama hubo Harry Maguire asagana la sheegay inuu dhaawac soo gaaro marka Manchester wax daafac leeyahay horta ma haysan hal meel ay daafac ku haysato male waa zero sidaas daraadeed waxaa leeyahay odayga wadnaha farta ku haya isagoo awal iska galab ahaa Chelsea haddana uu soo gashay meesheeda oo idina maxaa la yiraahdaa badisay oo shalay West Ham ku xaaqday 5 gool sidaas daraadeed waxaa leeyahay xaaladdu ma sahlano oo odayga waxa laga yaabaa FA Cup xataa Man City awalba oo ku tashanaysa inay daf ka siiso meel cilaan oo ku soo dhaco marka Chelsea waxaa leeyahay waxay dejisay qorshe kula soo wareegi lahayd Victor Osimhen oo xidiga Real Madrid u ciyaara naadiga Napoli waxaan leeyahay xidigaasi waa muhiim inaan helnaa waxaan u soo bandhigay Napoli ciyaartoy iyo lacag wax isugu jiro sidaas daraadeed waxay doonayaan in markaas xidigaas ay helaan maadaama Jackson ninkii la yiraahdo shalay laba gool liyay laakiin iska galab ah ciyaaraha waaweyn waxa weyn markuu oo isha ku helo waxa ma dhaliyo waa iska galab marka waxay leeyihiin ninkaasi waxa u baahanahay inaan bedelno oo ninkan la isku aamini karo adag inaan keensano sidaas daraadeed xaaladdu waa si adkaan kartaa Premier League wali oo furan yahay naadigeeda maxaa la yiraahdaa Manchester City iyo Arsenal wali ku hartamayaan xaaladuna wuxuu sheegay in Guardiola hadda wuxuu sheegay in adkaan karto haddii anagu wuxuu yiri goolasha inaan soo qabano oo 6 gool ay naga sarreeyaan Arsenal aan ku soo qabano way adag yiri laakiin si kale ay wax noqon karaan sidaas daraadeed waxa la yiri goolasha kulamadeedii hore saddexda ma iman karaan dabcan way iman karaan yiri laakiin way adag tahay inaan 6 gool soo jarno Arsenal la celiyo oo wax gool ay saddex lama soo galayso yiri marka arima dhanka goolasha uu ka qoostay odagan la yiraahdo Guardiola sidaas daraadeed xaaladda Premier League oo si adkaanaysa waxayna ku xirnaan doontaa leeyahay kulanka Fulham ay aadi doonaan iyo kulanka Manchester United ay aadi doonto Arsenal labadaas kulan ay aad loo qiimeynaya marka yaa dhigay labadaas kulan ay soo badin karo walow Tottenham ay kasii dambayso oo ayadana culays ay ku sii noqon karto leeyahay kulanka Tottenham ayaa u sii dhiman laba kulan oo away ah waa mid baaqi u ahaa oo Tottenham la ciyaari doonto iyo kan oo ay markaas Fulham la ciyaardo London ay ku laba noqon doonaan naadiga Manchester City marka Arsenal labada dhinac wax way ka rajeynaysaa oo waxa la leeyahay isha ay ku haysaa haddii Fulham ay ciyaari weysana inay Tottenham celiso ay rajeynayaan haddii Tottenham ciyaari weysana West Ham oo aakhirka kulanka ugu dambeeyay la ciyaari doonaan bal arka dana suuqa Leipzig ay dhaxmarayna
Arsenal waxay diyaarsan leeyahay in markaas dhageysto dalabyada lagu iibinayo weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus oo 27 sano jir ah waxayna doonayaan xidigaas inay iska iibiyaan ciyaaraanka sidoo kale waxay doonayaan ciyaaraanka qadka dhexe ee Ghana ninka lagu magacaabo Thomas Partey oo 30 sano jir ah iyo Jesus labadaba inay suuqa ay dhigaan waxaana wararku sheegay in Sacuudi Carabi ay aadi doonaan carabta ee Brian lacagtiis ka farqaysay inay lacag ka qaado doon halkaas ay u badan tahay mustaqbalka weeraryahanka Newcastle Callum Wilson ayaan weli la hubin iyadoo 32 sano jirkan reer England oo si weyn loola xiriirinayo inuu markaas ka tagayo St James Park oo badan tahay inuu ka tago tababaraha Bayern Munich Thomas Tuchel ayaa waxa leeyahay wuxuu hogaaminayaa loolanka lagu jiro inuu noqdo tababaraha xiga ee Manchester United isagoo markaas bedelaya Erik ten Hag oo laga yaabo inuu tagi doono xil ciyaareedka marka uu dhamaado Borussia Dortmund waxay doonaysaa inay sii haysato xidiga amaahda ku maqan amaahda uga maqan macnaha Man United Jadon Sancho xil ciyaareedka soo socdo laakiin ma doonayaan leeyahay inay markaas lacag ay bixiyaan waxay doonayaan inay amaah kale ku qaataan xil ciyaareedka soo socdo xilliin amaah ayaan doonaynaa in si joogto inaan u iibsano maan doonayna ileen sababta lacagtiisa badan oo nimankan ayaga marka hore 72 milyan ka bixiyay Manchester United waxay rajaynaysaa inay 100 milyan oo gani ku hesho iibka Jadon Sancho iyo Mason Greenwood halkaas ay isku darsanaysaa in 50-50 inay ka hesho 100 milyan inay wax ku soo iibsatay doonaysaa weeraryahanka Stuttgart ninka lagu magacaabo Regni ninka la yiraahdo Sulusu Grusi ayaa 28 sano jir ah ayaa diirada u saaran Arsenal iyadoo Mikel Arteta uu doonayo inuu xoojiyo weerarkiisa sidaas daraadeed xidigaas ayuu diirada saaraya waana xidig la heli karo lacag yar lagu heli karo ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer England Kevin Phillips oo markaasi ka rajo qaba inuu dib ugu laabto Leeds United xagaagan waxayna ku xiran tahay in kooxda Ellen Road ay ka dhisan ay dib ugu soo laabato Premier League haddii Premier League dib ugu soo laabato inuu loan ku aado ayaa laga yaabaa ama markaasi maadaama ku wareer Man City ciyaaran oo ka way Aston Villa waxay aad ugu dhowdahay la wareegida daafaca Atletico Madrid oo hormeysan ninka 28 sano jir ah AC Milan waxay diyaar u tahay inay markaasi ka fiirsato saxiixa 24 sano jirka reer Canada ee Jonathan David oo u ciyaara kooxda Faransiiska ee Lille sidaas daraadeed halkaas ay ciyaarihii kala marayaan waxaan leeyahay suuqa kala iibsiga intaas ay u dambeysay marka Manchester United waxaa leeyahay ciyaarta marka dhamaada Erik ten Hag ay ciyaari doontaa Mauricio Pochettino Chelsea waxaa laga yaabaa si naftiisa in digniinka madambeysa la siiyo ama kulmo gooni ah loo qabto xil ciyaareedka markuu bilaado si oo markaas u soo afjaro guuldarooyinka istaba joog ah ee markaas naadiga walow Chelsea maalmihii dambe ay soo kabsatay haddana ay kaalimaha ay kala baxayso Manchester United iyo Newcastle ay ku celinayso walow ay tahay waqti dambe waa arki doonaa wixii ka soo kordho rag fara badan oo ciyaaraha saadaaliyay Roy Keane oo kale Alan Shearer oo kaleeto oo isku baabar socdaan Premier League kooxda qaadi doonto oo isku dhinacayaan ninba wuxuu aaminsan yahay in Arsenal qaado midna inuu Man City qaadi doono adii comment nagu soo dhiib kooxda aad markaas aad aaminsan tahay nagu soo qor waxaana wararku sheegayaan ninka Onana ahaa inuu markaas doonayo inuu markaas waxa leeyahay Onana oo ka baqay inuu markaas ku soo qaldamay Manchester United iyo sababta uu ku abuurtay oo markaas la sharxay xulay Man United marka imaana oo ku qaldamo leeyahay waxaan arki doonaa inuu markaas inuu ku qaldamay in kale in Manchester qaldanto lacag qaldan ay bixisay labadaba waxa waay waa arki doonaa maasantiin barnaamijka shirgareeya meel fog gaarsiiya mar walbana waa idin soo gudbin doonaa waxa wixii akhbaaraha wixii fikirkaadana nagu soo reeb qaybta hoose ee commentiga inta barnaamijka la kulmi doono fi amaan illah